maxaa naga xaaraantinimay inaanu saddex gudoomiye xusbi yeelano annaga la dib saddex gudoomiye xusbi way noo soo baxday cidna ma naaxoogin cidna kulamaana dagaalan dalla laydin kama aayin dadna laydin kama aayin duuyo waxaad haysaan ilaahay baa nagu si wanaagsan oo sharaf leh xilkiisa uga wareejiya una hambaliyay waan arkay inama yarooyinka bay calama loo ordaya waa ceeb weey waxaas ceeb caligu saddexda xusbi saasaan ula soo baxnay hadii ay jiraan kuwa ururadoodii la soo bixi kari waayay ali aniga qaar baan ka iibinaya anaga ibad nagu bataneen qaar idin ka iibiye telefoonkayga soo garaa cid xusbi u baahnay la soo xiriir ilaahay baan u mahadnaqayaa waxaan kale u mahad celinayaa beelaha reer Soomaaliland ee nabadgelyada iyo sida wanaagsan ee akhlaaqda ku dheehan tahay u codeeyay ee codkoodii u siiyay cid walba cidii ay doonaysay waxaan haddana si gaar ah ugu sii mahad celinayaa isbedel doonka cidii u codaysay ee taladayadii qaadatay hadii yihiin beesha habar jeclay aanu ka dhalanay yaanu dhowrka jeer ku celcelinay ee baaqi ka soo baxay ceelaf weyn madax dhaqameedka beesha gudida iyo boqorkii Afrika boqor Ismaan Buurmadow baaqi ka soo baxay ceelaf weyn qaatay ee ka dhabeeyay yaan ku dhildhiilin inoo rumiyay wadarkiisina maalintii uu yimi Muuse ma wadin kaambi katiinadu sita weyn ogne katiinado وهل دور كرير كدوني إنه كحر حلو أيو ستي نسيبوناك وحقوه لي دتكو دي بوه لي فرتو دي بوه لي وأنا دين مهد علنية لأن يردي بنو مهد علنية هوين كي بنو مهد علنية وحجرت كي بنو مهد علنية بيلا الرير سومالان رير كليها أول وأنا سيجارة ولا هضلي أو إيجا أقبلي أو يالي وأنا مهد علنية أربانو مهد علنية رير كليها ذو سمرون reer Boorami degmooyinkooda iyo gobolkoodaba waan u mahad celinayaa waad ku mahadsantihiin ergaabaan u mahad celinayaa cid kasta oo isbedelka la shaqeysay waan u mahad celinayaa waxaan leeyahay Allah ya macag ilaahay maciina ha ahaado ilaahay haydan barakeeyo maalinta qiyaamana Allah haydan xishmado Allah haydan sharfo inta waxaan ku dhaafay mahad celintii dadkii u codeeyay isbedel doonka iyo kuwii u codeeyay حسبي أصحابتي كلبا وادد رير سومالنا قف كستابا ولا لا ميل كستاك يشرو حسبي قدوني هذا وعافس مانت سومالان بين وضنا سومالان أين وضنا هاي وحلا دي سيا مانت حكومة دي سومالان حكومة وناكسن بالله دي سيا نولا بك سوق يبقى حسبي قدون تاهو وتكسوق يبقى الكرتا تاس انت أصلا كل دافي وحنا لكن كلا هلا يا مدحوينها عصب ayaan halkan isagana hambaliyo u marinaya Cabdiraxmaan Qaboobi madaxweynihii hore aan daraabna looga bixiyo nagu handaraabay ilaahay horta Cabdiraxmaan Qaboobi hanooga ka dhigo qaboojiye Allah hanooga ka dhigo waxaan ka codsanayaa madaxweyne Cabdiraxmaan madaxweynaad maanta reer Soomaaliland u tahay waxa lagaaga baahan yahay xukuumad cid waliba ka muuqato xukuumad caalamka iyo reer Soomaaliland ba ku qanco ayaa lagaaga baahan yahay xukuumadda ka fiirso كاتشو حكومة وناكسن نوصودس حكومة وناكسن نوصودس وولي ببرسابة نمان كبرسابة أتكلم كسيو قبل الله دريسا نمان كدلنا يرى أفرتنشرني كير برسابة نوكدي رجوا وين أودعن كجرنا يا قبل كلا شقين كريا وضياشي ونبتقليه كشقين كريا وأفرتنشر كوجو يرى أفرتنشر نين كير من نقون كرو برساب نين أفرتنشر كوين أجاسيم من نقون كرو agaasimuuna wuxuu u baahan yahay nin dhalinyaro ah oo firfircoon barasaabkuna wuxuu u baahan yahay nin odayaho khabiiro hota ee dulqaad badan oo dhaqanka yaqaan ayuu u baahan yahay waxaan kaloo inta ku dhaafaya madaxweyne adiga xukuumadda yele baa laga doonaya xukuumadda Soomaaliland ka wada muuqata laga doonaya waxaan iyagana sii suguutiyay qoladii hore ee xukunka haysay مدة تضبط سنادودا أما قرارات أما معاناة وحن إذا كعد صنيع والشرف لا إذا كعد صنيع وقت وعم بالإدنسية غير سمال وقت وعم بالإدنسية فرصة وعم بتصوغ عادتين أما ها إسكت ضيعة أما هيدين هات لكن فرصة وناكسن أيات صوغ عادتين سوى ناكسن هانتي قرنك
iyo xilka qaranka isaga wareejiya oo sharafay ku dheehan tahay ha ku ciiboobina si wanaagsan isaga wareejiya waan ogahay maanta dalla laydin kama aayin dadna laydin kama aayin duuyo waxaad haysaan ilaahay baa nago si wanaagsan oo sharaf leh xilka isaga wareejiya una hambaliyaya lana shaqeeya xukuumadda cusub idinkana intaasaan idin leeyahay ummadda reer Somaliland hal baan kula dardaarmayaa waxaan idin leeyahay ummaddiina reer Somaliland maanta madaxweyne cusub baad doorateen madaxweyne ku-xigeen cusub baad doorateen si wanaagsan ula shaqeeya oo ay si ay noogu hirgasho aynu ictiraaf u helo horumar aynu u gaadhno si wanaagsan ula shaqeeya ayaan reer Somaliland leeyahay mucaaradada ayna ku bilaabin waan arkay inama yarooyin ka calaamad loo ordaya waa ceeb weey waxaas ceeb cali weey waxaan kale u sheegayaa saddexda xusbi ee qaran soo baxay iyagana waan hambalyeynaya wadani ka iyo kulmiye saddexda waan hambalyeynaya waxaan maqlayay niman la jifi hoosaale oo isku reerbay u soo baxeen cid aanu ka qaadnay wax reer Somaliland haday jirto ha yimaadeen kulmiye shirkad baanu ku ahayn annaga lahayn reer baanu shirkad ku ahayn migayagii bay mareysay mulkigiisa annaga lahayn sidii baanu ku hayna oo nagu soo noqday waa koow wadani annagu miirka iyo maanka gaba qabna ayaa lagu soo wareejiyay ka annaga la soo baxnay xigaalkayga nala soo saaray reer Somaliland baan nala soo saaray siyaasi hormuudda baa diiwati saddexda xusbi ee soo baxay ee saddexda ilmaadeerka la leeyahay saddexna isku jifiya baa haysta waan maqlayay saddexda xusbi saasaan ula soo baxnay hadii ay jiraan kuwa ururadoodii la soo bixi kari waayay aniga qaar baan ka iibinaya annaga ibad nagu bataneen qaar idin ka iibiyay telefonkayga soo garaa cid xusbi u baahnay la soo xiriir laakiin yaa loo dhan soo bixin waayo saddex habar magaadle oo ay haysan jiray saddex habar magaadle baa musharax ahaa saddex habar magaadle baa madaxweynaha isu kala bedelay maxaa naga xaaraantinimay inaanu saddex gudoomiye xusbi yeelano annaga la saddex gudoomiye xusbi way noo soo baxday cidna ma ana xoogin cidna kulamaana dagaalamin waxaan noo ogolaaday si dastuuriyo sharciya ayaan kula soo baxnay waana xusbiye Somaliland oo la wada leeyahay maanta hadaan gudoomiyayal ka nahay berri baa cid kale ka noqon kartaa berri baa cid kale iska soo sharaxi kartaa way xusbiyadii Somaliland markii ay haysteen saddexda habar magaad raalli baanu ku ahay maanta saddex habar xabusheeda baa haysta saddexna isku reera baa haysta diyaar baanu u nahay in cid kastaaba ka qayb qaadato laakiin maxay ugu soo baxeen waa xaasidnimada la iska daayo inama kala qabato xaasidnimadu walaalayn nahay dad wada dhashay baan nahay cidna waxba kama qaadin cidna waxba kama maguugin cidna waxba kuma kulamaana dagaalamin si sharciyo sifo sharciyo xalaala ayaan kula soo baxnay xisbiyada taana intaas aan leeyahay assalaamu calaykum waxaan u mahad celinayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland meel kasta ay joogaan ciidamada SSB ee difaaca meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo